kusoo dhawaada qodobada dulucda wararka oo aad halkan ka daawo doontaan sidoo kalena waxa aan ku eegi doonaa qodobada ugu xasaasisanaa ee dunida haatan ka taagnaa 24 saac ee la soo dhaafay sidoo kalena loo hadalhayay qodobada aad warkeena intuu socdo ku daawo doontaan daawadayaal waxa ka mid noqon doona madaxweynaha Venezuela oo xabsiga sidoo kalena Mareykanka uu ku naaloonaya in markii ugu horeysay dagaal aan dhiig ku daadan uu gacanta ku soo dhigay sidoo kalena haatan maxbuus uu yahay madaxweyne ay madaxiisa dul saarneed in ka badan 50 milyan sidoo kalena dunida 50 bilyan ay ku baadigoobaysay hase ahaatee muddo saacad gudaheeda looga tagay gurigiisa sidoo kalena uu gacanta ku soo dhigay dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay aqoonsiga Somaliland iyo sidoo kale dalal kale oo Somaliland ku soo fulay isbuuciyaha soo socdo in ay aqoonsadaan iyo sidoo kale safarka madaxweyne Ciro ee dalkaasi Israa'iil uu ku tagayo gaar ahaan Tel Aviv wararkii ugu dambeeyay howlgalo ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaano dhaco degmada Marka sidoo kalena xeebta dhaco ayaad barnaamijkeena intuu socdo kaga bogo doonta halka aad nagala socotaana waa dulucda wararka haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro subscribe iyo saar muuqaalka like saar share gare oo la wadaag saaxiibadaada mahadsanid daawade aynu ku bilownay daawadayaal Somaliland ayaa 26 bishii December sanadii tagtay 2026 waxaa loo aqoonsaday inay tahay jamhuuriyad madax bannaan oo aqoonsaday Israa'iil maamulkaasi Israa'iil ayaa si aad loo reeyay iyadoo dhinaca kalena dagaal xoogan halkaasi ay ka dhaceen oo diblomaasiyad xiriirka caalamiga dawladda federaalka Soomaaliya oo dagaal ba'an la gashay ayad barnaamijkeena intuu socdo la gashay sidoo kalena ay dagaalada sidoo kalena ay dawladda federaalka Soomaaliya ilaa ay hadda ku guuleysaneen in ay hakiso barnaamijkaasi aqoonsiga Somaliland ay ku sii dhaqaaqayso iyo sidoo kale in madaxweyne Ciro oo halkaasi u safri doono dhawaan sidoo kan la shaaci doono iyadoo markii ugu horeysay calanka Somaliland laga taagay qaramada midoobay ay geysay Israa'iil sidoo kale ay sheegtay in si dhab ah loo aqoonsado Somaliland haddaba waa kuwee dalalka la filayo in dhawaan ay sidoo kale ku soo biiraan aqoonsiga Somaliland ee Israa'iil sidoo kale ay si dhab ah u aqoonsadaan jamhuuriyad inay tahay Somaliland oo ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale hadalhayntan ayaa dhagta loo taagihaya iyo sidoo kale in xogo hore ay sheegayaan in Ethiopia ay ku xigto iyo sidoo kale dalkaasi South Sudan oo iyadana la sheegay in ay Somaliland ku dhawaaqi doonaan dhawaan inay si rasmi ah u aqoonsan kuna biiraan Ethiopia iyo kuna biiraan Israa'iil dhinaca kale haddii aynu eegno daawadayaal madaxweynaha Venezuela ayaa 13 sano dalkaasi xukumayay waxaa si dhab yar looga soo qabtay dalkiisa isagoo hoygiisa jooga isaga iyo waliba xaaskiisa arrintan oo la yaab leh sidoo kalena ay dad badan hadalhayn badan dhalisay sida Mareykanka sida sahlan u fududeysay in garabkiisa ay ka baxeen ciidamadii uu ku tashanayay iyo sidoo kale in madaxweynaha dalkaasi Venezuela haatan uu yahay maxbuus waliba gacmaha ka xiran si arxan darana dhawaan la filayo in cadaaladda loo marsiiyo isagoo madaxiisa markii hore Mareykanka uu dul saaray 50 bilyan oo dollar qofkii soo hesha amaba keenta madaxweynaha dalkaasi Venezuela isagoo ku eedeeyay inuu ka ganacsado daroogada iyo sidoo kale arrimo argagixiso uu ka shaqeeyo hase ahaatee waxaa ninkan madaxweynaha dalkaasi Venezuela garabkiisa ka baxay wadamada ugu quwadaha waaweyn qaarkood oo u sheegaya been iyo sidoo kale in ay joogaan garabkiisa hase ahaatee ku guuldareystay in ay mar qura garab istaagaan amaba ay wax u qabtaan isagoo haatan gacanta ugu jiro Mareykanka sidoo kalena ku jiro saldhig Mareykanka gacanta uu ku hayo ee ciidamadiisa ay haatan ku hayaan Ruushka iyo sidoo kale Shiinaha ayaa ka mid ahaa dalalka markii hore Venezuela uu sheegay in Mareykanka uu waxba ka qaadi doonin sidoo kalena isaga ay garabkiisa taagan yihiin hase ahaatee ilaa iyo hadda garabkiisa ayay ka baxeen madaxweynaha dalkaasi Venezuela Nicolas Maduro isagoo haatan gacanta ugu jiro kuwii shalay uu ka baxsanayay inuu goodinayay isagoo haatan walwal iyo walaac meel la fadhiyo iyo waxa cadaaladda Mareykanka uu ku goodinayo ay noqon doonto ka fikiraya gacmahana xarig katiinad ay ugu xiran tahay isaga iyo xaaskiisana haatan gacanta ay ku hayaan Mareykanka waa tahay daawadayaal dhinaca kalena waxa aan eegaynaa howlgalo ballaaran ayaa waxa ay ka dhaceen gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaano dhaco xeebta degmada Marka halkaas oo ay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo garabsanaya kuwa AMISOM gaar ahaan Uganda ciidamada Uganda ee ku joogo gobolkaasi Shabeellaha Hoose waxay howlgal ballaaran ka fuliyeen deegaano dhaco gobolka Shabeellaha Hoose iyagoo halkaasina
dagaaladaasi doonaya in ay gacanta ugula wareegaan deegaano ururka al-shabaab gacantooda ay ku hayeen muddo 10 sano iyadoo halkaasi ilaa iyo hadda ay ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya ku siqiyaan deegaano howlgal wax dagaal oo buuran ay la kulmin iyagoo ururka al-shabaab ay u baneynayaan deegaanada ay kusoo wajahayeen amaba ay helaan xogta inay ciidamada dowladda kusoo wajahayeen hase ahaatee dowladda federaalk Soomaaliya oo garabsanaysa kuwa AMISOM gaar ahaan Uganda iyo sidoo kale ciidamada cirka ee beesha caalamka saaxiibada Soomaaliya ayaa duqeymo ballaaran waxa ay ka fulinayeen gobolkaasi Shabeellaha Hoose iyagoo ugu gol leh in ay deegaanadaasi gobolka Shabeellaha Hoose gacantooda ku jira ururka al-shabaab ay ka saaraan si kastaba haatee al-shabaab oo muddo 15 sano ku dhawaada ay la dagaalamayso dowladda federaalk Soomaaliya balse wax guul ah oo muhiim aysan ka gaarin marka laga reebo caasimada Muqdisho hase ahaatee gobolada dalka ayaa ururka al-shabaab deegaano badan waxa ay gacanta ku hayaan sidoo kale gacantooda ay ku jirtaa iyadoo dowladda markastana ay sheegto sanad walba oo cusub in ay gacanta ku dhigayso deegaanadaasi sidoo kale ururka al-shabaab ay ka xoreynayso deegaanadaasi dhaco gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaanada dhammaan gacantooda ku jira guud ahaan dhaho ururka al-shabaab gacantooda ku jira sida Shabeellada Hoose Shabeellada Dhexe Hiiraan Galguduud iyo sidoo kale Bay iyo Boqol oo ururka al-shabaab ugu sugan yihiin qaybo badan oo kamid ah koonfurta Soomaaliya ilaa iyo hadda maamaraan waliba muddo dheer si kastaba haatee dowladda federaalk Soomaaliya oo muddo xileedkeedii ugu dambeeyay ku jirto sidoo kale daalaadhacaysa xaalada amni iyo siyaasadeed oo cakiran ayaa haatan markaa waxay dhaqdhaqaaqyo military ka bilowday gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo gobolka Shabeellada Dhexe ay ururka al-shabaab dagaalo ku soo qaadeen deegaanka Wargaadhi sidoo kalena ay muddo saacado ku dagaalamayeen 2 maalmood ka hor hase ahaatee ay dowladda ilaayada sheegtay inay iyadu gacanta ku hayso deegaanadaasi sidoo kalena aysan jirin ururka al-shabaab dagaal xoogan kadib waxa ay la wareegeen si kastaba haatee ururka al-shabaab iyo dowladda ayaa ku hardamay gacan ku haynta deegaano dhaco gobolada dalka gaar ahaan koonfurta halkaas oo ay doonayaan in ay sii joogaan halka dowladdana ay doonaysay in maamulkaasi iyada ay la wareeg sidoo kale ururka al-shabaab ay ka saarto waa tahay daawadayaal haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqato janalkan dulucda wararka fadlan subscribe ku cimaamad muuqaalka like share gare gaarsii saaxiibadaada mahadsanid daawade